برق فرح ما تباستو قل كست الرجل الصومال لوجا هالله هذا ما وحي جارتي إن تجوجشي إني أدميديها أو هذا الشعب وهذا قبل جوجشي اللي كشيء كيدا الدم درق اللي يومينها للسداهو دمرك أنت سو أردان أي أرجع الرجل واستعماله الرجل أي قبل هنا أيدا بهولي يسدح نصافرتي عاد أيام أو حماهاي رضوان إساقنا وان عمبارينا يا قبل اللي افتر كذا عمبارينا يا دمرك فلكس وكعير بالاش أيام كرفيا عاد ياد أيام أو حماهاي وان كقشافونايا وانا كلبلبونايا تطقل ودين له ayaan ahayn laakiin hadda waxaad u maleedaa maalinta ka dambeeyda inaan dhaqankeeni iyo diinteeni labadaba aan qashin ku darnay dad dhaqankooda ka taga waa la arkay diintooda si ku dhagan laakiin udan Soomaalina diinna ka tagnay dhaqanna ka tagnay waxna celiyaana ma jiro damiirna ma lihini aqli toona gabar 13 sano ayadoo jirtay la guursaday ee 3 nin maraysa ee la soo furay ee nin kale guursaday ee oo furay ee hooye ee maanta nin kala qabo in intermediate soo fariisato ayadoo wax ka soo galay aysan jirinin ee halkaas la soo faray dam dalaq ma wax normal ah la tahay ma okay aad u aragtaan ninku hadii adigu sidii aad rabtay aad ka weysay de walaalo shalay marka aad guursanaysa dad kaamira soo hor fariistay maad ku guursan qofka sida adigu aad jeclahay dad ka weysay laba wada ayaa ku furan inaad banaan ka martid iyo inaad ku haysatid laakiin inaad sharaf kaaga bistooladeysid ee sharaftaada iyo cisigaaga iyo awlaadaada bari aad ku ciyaartid ma wax wanaagsan ay la tahay had ma waxaad u malaysaa ninkana intaas in leegu dhibtay intaas in leeg inaa u dhibto ma malaysaa naadaa sharaftaada ku ciyaaray oo cisigaaga ku ciyaaray adiga raggi Soomaaliyeed baholaataha ku leeyihiin oo saddexna hore ku soo furtay adiga lagu dhagay oo lagu caynaa qol kasta laga falanqeynaa de inta doqon ma garatada aheedo waalneede ee dareenka waalan oo waalayo xanuunka Soomaalidu dareen xanuun ay wada qabaan waalayna ya hadal heen bay ka aragteen ragga Soomaaliyeed marka hore Allah ku saladay oo biri qameelaha la taagneenna ya dam dalaq ee qol kasta ka leeyihiin intii garaadka iyo aqliga iyo xishoodka iyo caafimaadka qabtana indhaha inta ka fiiriyeen ay aad ku leeyahay marka anigu ilaa hadda uma jeedo wax aad ka faa'iiday oo adiga ahayn oo inaad adigu is cayday aanan ahayn oo inaad adigu isnagaadeedaan ahayn Soomaalidu waa dadka kaliya ayagoo maaga ay is wanaajiya hadana is caayo is xumeeyo sababtoo hore ay sheegay ruuxaantooda ayaa ka xoog badan sidii bilaadan qofku duusan dareen hadlin oo san qalbigiisa ka hadlin ee qalbigiisa iyo aqligiisa iyo dareenkiisa ay kala horeeyaan waxyaalahan oo kala laga dhaxlaa dhibaatooyinkan oo kala laga kulmaa bal hadda gabadhaani waxa ay sameeyday aslan annaga dhan oo gabdha Soomaaliya ay ceeb nugu tahay annaga dhan ayay nugu xun tahay war ilaa ay xilliga saxaabada war ilaa ay xillig kasta ay jirto inay gabarninka heli weysay nacdo waday ku kala baxanayeen kitaabka islaamka ayaa lagu kala baxaa haduu ku furi diiday xaqibadu cararaysa banaanka ilaahay kamar laakiin tadmiidii soo fariisataan inaad mar dhahdaan nin baa nagala wato beena hadana aad dalam ka soo fariisatay hada ru sheegaysay indihina aad qarsatay haduu kugu xumaaday maxay magaciisu wadaa talabaad waxaan nahay dumarka kaliya ee waxa ay nacaan ku digriya ninkaas waa nacay lagu leeyahay 4 ilaa 10 sano magaciisa la sheegaa media waxa loo faarax masabaastir rajamal hadana qol kasto la saaray ragga Soomaali ayaa laga hadlaa meel kasta wiil Soomaali ayaa looga hadlayaa meel kasta waa lagu dhagay adduunka nin Soomaalida u jeceshihiin hadana sharaftini iyo bahdil 24 sano qof ka hadashid ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado 24 sano inaan qof ka hadlo anu kulli xamdi ahaantida bahdil ayaan buu arkaaba because hadana qofkii aanan ahayn qof aan wanaag ka sheegayo lahayn yes qofkaas uu wanaagsan yahay wanaagaas uu leeyahay wanaagaas uga daysada waa jecelahay waa qof noocaas oo ku dayda aan lahayn ee aan caayna uga baajo dam dalaq ma taqaana biriq ruq aan ku hayo hadana afka aan kala qaado waagu ii bareega balku ii dhac aan ninka hadlaayo taas macnaheedu waxay inii sheegaysaa in cudur ingu dhacay laakiin aanan daawadiisi wadada aanan ku haynin sida bilaadan waxa jiro cudurro ragana 40 markay dhaafan ku dhaco oo qofku uu dareen wareero dumarkan uu ku dhacaa soo marka qofka haduu iska warqabin oo si islahayn maxaa iga bedelmay maxaa iga bedelan maxaa igu soo darsamay maxaa siyaadaha yimid mis ogaanayo daaqad kasto ka lushanin ayuu ka sheekeynaya rudwan isaaqa ku saharay rudwan duulaan baad nagu tahay walaalo xaqiiqiyan sida kula hadlaan duulaan ayaad ku tahay dhaqankeena iyo dumarnimadeena gabar kasta Soomaaliyeed ugu fikirana
يا وإلى دريمي دونتا صابت حيث هاي إن تجبر إسلاميت كبر مسلمة الصومالية ذا وريستيد عاد جوجش ذي كوريستي كاجا دعوته نينكا أي جوجش اللي وداك تماضى عليه وامي ما أديك كل شيء وامي ما ويل كيسات هاي وامي صابت برنامج النوع عاصر وان أسود دينيسيد هذا الواقعي وأساريسيد التورش كي الدنيا وشيء ولا المشي كرتا رضوان ويل أدو حشاد بدنات هاد حقيقة ما كل ربو أدنا وكو احترامه رنت ما كل ربو لكن ولا على مالمها تنبع حالدو أديكو وحمادين وحيالها العمل قبرني بالصومالي نمدين أي واحد بدن نقل تيسا بليس دليران والن هأفرين وددي أي كو على الهايين دمر كان توش كرجل لو داري أي واشي هأفرين وددي أي كسي على الهايين dhaqan aan leenahay diinna waan leenahay gabarnimo Soomaaliyeedna way jirtaa walaalo hanoo quurin xumaanta inteena asturan ee dhowrsan ee waxyaalahaas aysan ka suuraabin biliis wayna dhibaysaa hadan gabar Soomaaliyeedna dhalinyarada meediyaha joogta wacyigelin ay u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in culimadii iyo waalidkii dhalay iyo culimadii Soomaaliyeed labaduba ay ka gaabiyeen sababtu xitaa hooyada ogolaanaysa inay gabadheedu 4 saac dhoofto inay gabadheedu nin aan qabin korkiisa maanta dhan saarnaato inay gabadheedu intay biyo isku soo shubtay ee dabadeeda kaamirada soo saarto in gabadheedu ay maanta dhan nin qeyrkeeda meediyaha uga dhex baroorato in inta gabadheeda la soo tuubo Telegram gabdhaha ka buuxa waalid ayaa dhalay ma jirto cid iska wada dhashay waxaas ciyaal soos way ka badan yihiin soosta agteena ku taalay way ka badan yihiin caruurta meeshan ka buuxdo arka hadda ka hor soo marka annagoo markeeni hore hal ku taagneen Rudwaan Isaaqo hadii adigii maanta podcastiga ahaa dhalinyaro badan ay kugu xirnaayeen barnaamijyada la jeclaa aniga alxamdulillah kamid ka barnaamijyada daawado aad waxyaalahan amal bulshada u soo deesid walaalo dad badan ayaa albaabka waxaad u fureysaa inay gogashoodi ka sheekeeyaan runta marka la rabo in gogasha ay Soomaalidu marka Soomaali ka sheekeeyaan 5% ayaa ku kacdo wali waan ka roonahay Faarax Machabaasta iyo Biriq ma dhaafsiisane laakiin waxa hadda meediyaha ka dhacay ee labada maalin ka socdo ee adigu aad soo deeday aakhirna waa lagu xisaabtami oo waa xaqiiqo jirto adduunyada korkeedana qaladaad badan aad ku gashay oo waa dambi ku socdo qof kasto xumaantaas ku dhiiradana ogow dambiye ku taa Rudwaanow بليز بارت 2 هسوديني برنامج كس أنو تبيس تلاص أيام كسيلة رضوان إساق أديكو نقول احترامايا جبر الصومال النمو إيه ولا النمو منا وحنا لا يهض مركز الصوماليات أرجع برقة هاي درق دم كل بدشة ده أول بدمر ووضعنا هاي قمار كان ووضعنا لقد الصومال قالوا وين قاعد حيدا دينتنا وين قاعد حيدا لك وكل دونا نا شرفكين يعسجين إلى عشرة نا رجع الصوماليات إنها كهذا الشعب وأد هيركز جارستان ما استاهلان نا رجعن أفر إلى وقتك ساعات كده جنتينو تكهلا يسان نا كستنين كأيدا صومرة بيت قانا ما وده قرنا يسان رجع عالم كتشوجودا جبر كستو الصومالي وحي تقانا ننكي أي جوجل وداك حتى ولاك أقول شيء متقالد ورئيس بكل تشوجا كل جيس مركو تجنا شخصيات كلا يحاسك سكولا كل ما ولاك ما أقول كرتيت waxa aad taqaanaa kaliya waxay tahay ninka adiga dirin kula wadaagay ee guri kula wadaagay ee gogol kula wadaagay ama dam dalaqa ku ahaado ama Machabaasta ku ahaado ama Biriqa ku ahaado wiilasha Soomaaliyeed qaladaadka faraha badaneed ka galaysan inta naakasto Soomaaliyeed hal nin ayadu soo arkata ee ragga dhan ninkii oo kale ay ku samadanayso walaal ragga Soomaaliyeed rag fiican way leeyihiin rag xun way leeyihiin haday xun yihiin maxaad 4 uga hadashaa هذا بيقول السؤال الحين إيسم في عنين بالمانطة إيه كلا صار محا قلك عن رجيستبع عن أهيسطان محا دم دلقدو ده يبرق نمدو ده يباست نمدو ده يكلا قلوع ده أذنك إنه دول صار محا دوغا هالليسان ويحين إذن قفحن كما هذا الشو إذن قفحن كما هذا الشو ويلاش الصوماليين إنه يوناكسينهين ورقارا إيسن تشرين إنتا قراتك أقلق الهوي أكتها ما قبضي من حنو كسو آدي ما قبضي حلقوبة كسو آدي ما قبضي لوسر أنا عرورتي سي حاسكيس وفعنين كسو آدي دي ولا لك كسو آدي كليها تقانا رقو منك أنا إقابو يكأذيه وقابو وكبدان يحي وركبا لاران يحي قبل بدنا وحي هستان ويلال الدنيا ده إلهي كاني wanaagooda oo aad isleedahay kaasi waa aabala dhameystir ayaa gabdho badan qaba oo Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in loser xuni oo ku soo aaday laakiin qof xumi iloobid ayuu leeyahay qof wanaagsanina dhaqasho ayuu leeyahay laakiin dumar oo meeshan u dhaxeedo ee hadda ay maraysa inaad meediyaha gogashiin uga sheekeysaan
anigu meesha u socotaan ma garanayo aad ayaa u qiiroodaa marka waxyaalaha gabalka hadlayo sharafteena iyo sharaftiina waad ku dheeshin beliis noloshu way ka weyn tahay nin ee niga dhaafa haddaba hadda halkaa ila soo gaarto muuqaalka ilaa garay gabar yahay daawanaysa mas-uuliyad ayaa kaa saaran diintaada iyo dhaqankaaga duulaan ayaa lagu yahay dhallinyaradeenna meel xun ayay ku socdaan ka hortag kana dhiidhi at least committeegaaga ku cabir haddaad adigu aadan lahayn YouTube ama meel aad kusoo gudbida barnaamijyadan oo kale hadaba muuqaalka ilaa karay abaay macaan ina sii sheergaray asxaabtaadana sii gaarsii waxyaalaha dumarnimadeena wuxuu dhibaayana aan hal meel uga soo jeesano